mahadsantihiin soo dhaweynta sharafta leh waxaan ku bilaabayaa oo aan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iga guddooma salaantiisa reer baydhabo jannaay siin salaame nabada hergela barida eed iyo eed yaa inki mahadsantihiin sida suuradda leh ha indha weynteen reer baydhabo jannaay siin hilaawi isin ii hilowteena reer koonfur galbeed soomaaliya isin quudiya jirteen quudiyowkii yaa la isinka fadeehaydaan maanta reer koonfur galbeed inay iswaraysanayaa inkooy reedna sogaal soor wansuuse ee aamufade gurigii barwaaqadaay baydhaboy ma nabadba baradii masakadoy baydhaboy ma nabadba beryaan kala maqnayne baydhaboy ma nabadba isha biyaha kululayo berdihii ku caanaay baydhaboy ma nabadba bulsho nabadda jecelaay baydhaboy ma nabadba waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo sida dowladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaa halkan ka muuqata sida dowladnimada looga oogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyuhuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyeen horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa horteyda ka muuqda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka soomaaliyeed ay yihiin dhallinyaro waa idin hambalyaynayaa sidaa isugu duubantihiin waa idin hambalyaynayaa sidaa dowladdiinna u garab taagantihiin waa idin hambalyaynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaan u nimid anigay waftigaan hogaaminayo inaan la fariisanno madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiinnu kala hadalno baahiyada aa qabtaan ku bilaabno sidii hay-adihiinna amniga loo xoojin lahaa dib u habeyn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiinna aanna ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u furi lahayn jidka isku xidha xamar iyo baydhabo haddii ilaah yidhaahdo sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah koonfur galbeed oo ay ugu horreysa shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celinayaa doorka mudgale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajeynayna mar dhow
madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo gala haddii ilaa yidhaahdo halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyay amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dowladnimo dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto sidaas daraaddeed ayaan waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dib u dhiska dalka amniga iyo sidii dhallinyaradan faraha badan ee halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaa yidhaahdo meel walba waan ku soo wareegay dalka soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhallinyaro soomaaliyeed mar walba oo dadka soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culummo soomaaliyeed mar walbuu dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tiraahdaa waxaan rabnaa soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligood waa dad soomaaliyeed soomaalinimada ka dhexaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doona qabyaalad reer baydhabana waxaan rabnaa inay hormuud ku noqdaan soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dawladdeenu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dawladeed iftiin dawladeed oo ay tusaale ka tahay si soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiimada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dawlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hortaaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma socotay kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray baydhabana waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqata dawlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin mateli lahayd laakiin iyadu idin matasha oo aan xoolihiinna idinka xadin ama idinka musuqmaaqsan laakiin idin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dawladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in deynta laydinka cafiyo oo ciidankiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadowga haysta laga xoreeyo oo idin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonto wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga iyagu inay noqdaan kuwii dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahay masiirka uu yeelanayo iyagu codka dhiiban doono jid dheer baan soo marnay godad iyo buurale mugdi ah iyo gudcor qaybtii iftiinkaan u soo baxnay laakiin in la sii adkaystaa la rabaa ogow culays walba oo dawladnimada loo mara macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dawlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogno culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyada maanta aan joogno culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku inaad heshaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiye waan hellay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo dawladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dawladnimadiina laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dawladnimadiina ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalka ula wareegi lahaydeen anigoo la geli doono wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiina kala hadli doonaa waxyaabaha
وربنا الدولة الفدرال كوعوسو أنا نسنا هنا شقوين بدل هالكن كخبر إنه وحنكون بالله إن أمر كوره بلغات كوره أو إن دليرة الربيع ده هالكن جوتي كفران إن لقى بالله مالين تبريا الدولة الفدرال كويكتشف إنه تين ليدين دسكرون كانوا وما تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.